Maraykanka ayaa ku fashilmay oo wax ka qaban waayay droniska iyo gantaalada Xuutiyiinta Yemen ay ku weerarayeen maraakiibta militariga iyo kuwa ganacsiga ee reer galbeedka iyo Israa'iil ee maraya marinka Bab-el-Mandeb ee Badda Cas. Khubarada militariga dunida ayaa isweydiinaya sidee Xuutiyiinta Yemen uga guuleysteen Maraykanka iyadoo Xuutiyiintu ay yihiin jabhad yar oo isticmaalaysa gantaalo iyo drones raqiis ah oo aan u dhigmin kuwa Maraykanka. Waxaa kaloo la isweydiinayaa sababta droniska Xuutiyiinta ay u adag tahay in lala dagaalamo iyadoo ay isu bahaysteen Maraykanka iyo dalal badan oo reer galbeeda. General Robert Neller oo ah sarkaal howlgab ah oo ka tirsanaan jiray ciidamada Mariniska Maraykanka ayaa sheegay in Maraykanku ku jabay dagaalka Xuutiyiinta Yemen uuna ku degdegay Maraykanku inuu xiisadda Xuutiyiinta faraha la galo loona baahnaa inuu Xuutiyiinta u diro dowladda Cumaan oo ay isku fiican yihiin wada hadalna lala galo. General Robert Neller ayaa sheegay inaan laga adkaan karin Xuutiyiinta haddii wax kasta la sameeyo, wuxuuna intaa ku daray dagaal lala galo Xuutiyiinta waxay xanibaysaa oo kaliya jidka ganacsiga dunidu uu maray ee Bab-el-Mandeb. Ayaa sheegay in habka Xuutiyiintu u shaqeeyaan ay caqabad ku tahay ciidamada badda ee reer galbeedka maadaama ay ka hortegayaan drones iyo gantaallo aan wax kharash uga baxayn Xuutiyiinta. Maraykanka ayay xaaladdu ku xun tahay wuxuuna u adkaysan laayahay kharashka tirada badan ee kaga baxaya nidaamka difaaca ee uu kaga hortegayo weerarada diyaaradaha droneska iyo gantaalada Xuutiyiinta sida ay sheegayaan gaashaandhigga Maraykanku. Xuutiyiinta ayaa isticmaalaya gantaallo iyo diyaarado qiimahoodu yahay $2,000 kaliya iyadoo uu Maraykanku kaga hortegayo gantaallo halkii saxabo uu ku kacayo lacag ka badan $2 milyan. waxaana marinka Bab-el-Mandeb hadda ku dagaalamaya Maraykanka oo isticmaalaya gantaal qiimihiisu yahay $2 milyan iyo gantaallo iyo drones qiimahoodu uu yahay lacag dhan $2,000 oo kaliya oo ay adeegsanayaan Xuutiyiinta Yemen. Arrintaasina waxay mashaqo iyo dhibaato ku noqotay Maraykanka sababtoo ah faa'iidada ugu badan waxay ugu jirtaa Xuutiyiinta sida ay sheegeen khubarada gaashaandhigga Maraykanku. Xuutiyiinta ayaa gantaallo balastik ah iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ku garaacay maraakiibta militariga iyo kuwa ganacsiga ee mara marinka Bab-el-Mandeb ee Badda Cas si ay ugu cadaadiyaan Israa'iil inay joojiso howlgallada militari ee ay ka wada Gaza. Wargeyska Politico ayaa qoray warbixin uu ciwaan uga dhigay gantaal $2 milyan ah ayaa ka hortegaya daroon qiimaheedu uu yahay $2,000. Kharashka tirada badan ee ku baxaya soo rididda diyaaradaha droniska iyo gantaalada Xuutiyiinta ayaa ah walaac isa soo taraya sida ay sheegayaan saraakiisha Pentagon. Hal gantaal oo qiimihiisu dhan yahay $2 milyan ayuu Maraykanku u adeegsadaa inuu ku qabto ama uu ku soo rido diyaaradaha droniska Xuutiyiinta oo qiimaheedu yahay $2,000 oo kaliya, taasoo Maraykanka ku noqotay khasaaro joogto ah oo u adkaysan laayahay tan iyo markii ay Xuutiyiintu bilaabeen inay drones iyo gantaalo ku weeraraan maraakiibta ganacsi iyo kuwa militari ee reer galbeedka ee soo mara Badda Cas.